waxaan dhihi lahaa Cabdiwali oo waan ku haweenay horseeda how warhida kugu soo arooray hogaanka qabo hirgali dawladnimada sidii haybad lowsiyaad halyaygi ina farmaaje hankiisi doon oo waan ku haweenay hana qudar diinta islaamka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan mar kale aan raali weydiisanayaa odayaasha garaadada suldaamada malaaqyada fadhiya meeshan ee aniga hadda aan ka soo hormaray wax kale ma aha waxaan ka imid aniga meel Rochester la yiraahdo marka 2 saac oo driving ayaan hadan u baahnay marka intaas aan idin ka hormaray horta iga raali ahaada midda kale waxaan aad iyo aad caaw ugu faraxsanahay in aan halkan ka soo qayb galo soo dhaweynta muxuu ahaayeeto xafladda soo dhaweynta ra'iisul wasaaraheena cusub Cabdiwali Sheekh Axmed Baar Dheere aniga iyo Cabdiwali isku xaafad baanu nahay Baar Dheere meel la yiraahdo buulaga waaweyn baan ku dhalanoo joognay iskuul baan hayn marka aad baan ku soo dhaweynayaa tacliinta sare waa nala jooga markii hore waa la igu ogaa hal calan baan sidan jiray wallahi baan sitaa midkanna waa kii Cabdiwali oo laba jibaar baan taageersanahay bal aan xisaabtano dawladdii noo dhalatay in aadka u faraxsanayn ay ahayd maaragtay dawlad Soomaaliyeed tii ugu horeysay 22 sano kadib uu noo maamulay oo madaxweynaha u dooranay Xasan Sheekh waxaan isku ogeyn in arrimo 6 ah wax laga qabto ammaanka xasilinta iyo ammaanka dalka in la sameeyo cadaalad in la soo celiyo dhaqaalaha dalka oo la adkeeyo dib u heshiisiin ballaaran in la sameeyo midnimada dalka in lagu dadaalo iyo in xiriirka dibadda la soo celiyo haddaba maxaa inoo qabsoomay hal sano kadib dawladdu waxay qabatay hawl aad u badan intii yareyd ay joogtay dawladda waxaana oo hirgeliyay inay hawlahan inta badan ay qabtaan ra'iisul wasaarihii hore Dr. Saacid baa isna qayb weyn ku lahaa inay halka aan maanta gaarsiisanahay ay joogto waxyaabo badan way qabsoomeen waxa qabsoomay in la abuuray xiriir aad u dheer ama adag oo xagga adduunka ah dhaqaalaha wadanka uu fiican yahay maxaa dhacay hadeer waxaan bari dhaweyd maqlaayay in airportka dakhli weyn uu ka soo galo oo maanta wixii ay xisaaban yihiin oo aan lagu tashan karo intii kalena waa ku soo xigtaa waxaan dawladda aad ugu mahadinayaa tii hore ee Saacid qaybtii ballaarneed uu naga siiyay hadaan nahay haweenka Soomaaliyeed wuxuu naga siiyay 2 jago oo ugu muhiimsan 10 wasiir buu 2 naga siiyay waliba 2 jago oo aad u muhiimsan hadaan nahay gabdhaha Soomaaliyeed waadna ogtiin idinka marqaati ka ah sidii ayaga soo baxeen gabdhaha sawshoodii hawl cad oo waxtar leh oo taagan bay gabdhaha Soomaaliyeed Fawziya Xaaji Aadan iyo Maryan Qaasin ay ka soo baxeen waxaanan codsanaynaa inay ku soo noqdaan haddii Ilaahay yiraahdo dawladda haday suurowdo midda kale isuma sheegayno kaalinta ay haweenka Soomaaliyeed ay leeyihiin dhibaatadii marka ay dhacday waxa 90% dadka halkan fadhiya haween baa keenay haween baa soo bixiyay haween baa u shaqeeyay marka taasi isuma sheegayno waan ognahay laakiin wali waxa moodaa in kaalintaani aan wali ay ku jirto maaragtay tashi oo lagala tashan hayo ragga waxa noogu dhiibina
ragga sida wiilasha noogu walqali waaye waxba noogu dhiibina ragga sida wiilasha noogu farxi waaye markaan dhalanno waxba loogu dhiibin midda kale oo annaga aan ragga uga duwanahay waxa weeye waxaan nahay ummadda kaliya een qabiil lahayn waxa la yiri gabdhaha tolma tag mooyee tol male haddaba hadday sidaas noqotay tiradina aan lagu darin 4.5 kana lagu darin oo la dhihin haddana gabadhii yani tag male tol meeye tag malana aan lagu dhihin qayb lagaga dhigin meeshaas hadde waxa meeshii ka cad in dadkii annaga aan ka dhalaynana ayna siinaynin wax kuwii kale haddana lagu xaglinayo lahaa xagaas ay u badan yihiin oo caruur xagga u dhaleen xagaasna aan ma jirno xaggana ma jirno marka taasina waa dhibaato in lagu tahay marka waxaan dhihi lahaa gabdhaha Soomaaliyeed oo waxaan idin sheegay maaha waad ogtihiin dhaqanka Soomaalida waa taqaanaan waa inaad isgarab qabsataan waa inaad doontaan xaqin idinka doontaan cid idin maqan male waa inaad aanu qabiil la'aan nahan qabiil ma lihin ka dhalatana kuma arkahayo hataa tirada uguma jirtid kii aad u dhaxsanay gabar dadoo baa ka tahay oo dirida waa laga soo xirnayaa markii la shirahayo marka waxaanu gabdhaha u sheegi lahaa in maaragtay aanu isqabsano annaga isku qabiila annaga isku dada xaqeena aan u doodno gabdhihii naga horeeyay xaq gabdhaha Soomaaliyeed u doodi jiray inaanu ku dayanno dawladda waxaan ka codsanaynaa Cabdi Wali waxaan ka codsanaynaa Cabdi Wali qaybta iyada ragga hanoogu dhiibin hanoogu darin noona badi 30% nobody 30% waxba maaha rag hadii si fiican loo xisaabtamo annaga 50% waan ka badannahay haweenka daanahay raga waan idinka waa isdhamayseen annaga wali waa dihanahay marka soddonkii haddaan konton la siin karin bal soddonkii hana la siiyo hadda Puntland baan hadda maalin dhaweyto waxaan aad uga xumahay in dadkii la doortay oo dhan hal gabar kaliya ku jirto marka gabdhayahow haddaad joogtaan Puntland iyo haddaad joogtaan iyo Xamar haddaad joogtaan Kismaayo haddaad kilinka shanaad joogtaan war dadna uma maqana marka waa inaan annagu aan isku dad ahaano aanu tashano marka heestii haddayna iga horeynin wax badan baan dhihi lahaa marka ma dhahayo Cabdi Wali baan rabaa inaan wax yar yiraahdo Cabdi Wali waad soo dhawaanaysaa hadda waa Cabdi Wali arinka okay hadda waa waxaan dhihi lahaa Cabdi Wali oo waan ku haweenee horseedahow warhida kugu soo arooray hoggaanka qabo hirgali dawladnimada sidii haybad lowsiyaad halyeygi ina farmaaje hankiisi doon oo waanu ku hanweynay ha ku dar militariga haybadiisi soo celi militariga noodis oo gabdho u badan yihiin thank you guys